Halkan waa xerada Belidogle oo dhanka galbeed ka xigta magaalada Muqdisho. Halkaa waxaa ka aragtaan gaari socda oo raran. Gaarigaas waa nooca Soomaalidu u taqaano TM-ka, aad ayuu u raran yahay. Waxa uu sidaa waxyaabaha qarxa. Marka gaarigaas mal waxa ku dhacaya aan yara daawano. Kulli kor ayaa lagala socday oo ciidamada halka jooga way la socdeen. Muuqaalkana waxaa duubay kaamirooyinka garoonka ayaa duubay. Gaarigaas saaid ayuu u raran yahay. Wuxuu rabaa marka inuu soo galo. Gaariga waa kaasaha waa lala socdaa. Xabadaha lagu riday, xabadihii kulli waa ku istaagi waayay. Marka dambe waxa uu ku dhacayaa god ayuu ku dhacayaa halkaas. God uu ku dhacayaa marka an yar kadib gaarigu aad buu u raran yahay. Kulli markaas meel buu ku dhacay marka god buu ku dhacay qaarka dambe kula dhacay. Xabadaha lagu riday dhowr xabaa lagu ridi doonaa marka waa qarxi doonaa gaarigaasi. Dabcan gaarigan waxa uu sidaa waxyaabo aad u culus. Baabuurta sidaan oo kale qarax lagu soo xirana badanaa waxbaa lagu soo daraa shidaal iyo waxyaabo kale bira iyo si markaa qaraxu uu saameyn u yeesho oo ka xabada ku socota. Gaarigu godka ku jiraa. Marka wala aragno haddaba soo noqdo. Xabadu waa ku socotaa. Gaariguna godka ku jiraa kama bixi karo. Marka targetkii si kulli gaarigu ma gaarin oo halkaas ku dhacay wixii saarana waa saaran yihiin. Xabadna waa ku socotaa. Halkaas weli waa ku socotaa xabada ugu ridaya marka. Halkaas soo godka ku jira qaarka dambe kula jira kulli gadaala wax culus ka saarayeen. Halka uu qarxa marka. Dabcan qaraxaani waxaan u maleynayaa inuusan ka yareen ama ka awood yareen kii soobe oo kale. Haddii uu meel magaalo ah uu ka dhici lahaana saameyn weyn ayuu geysan lahaa qaraxaani sida muuqata. Gaarigaas halkaas uu ku qarxay. Qorshihii kulli loo soo rarana waa uu guul dareystay. Kaas halkaas uu ku qarxay. Laakiin hawsha halka kuma eka oo baawur kale ka dambaysa. Gaarigan waxaa daba jooga baabuur kale oo ciidan sida. Gaari iska roga ah ayaa ka dambeeya oo ciidan ku raran. Gaariga marka iska rogaha ah dabcan jambiyadiisa ama dhinacyadiisa waxaa laga soo dhigay bulletproof. Waa arki doontaan hadduu soo socdaa. Halkaas gaarigii iska rogaha ciidan ayuu sidaa gaarigaasi. Jambiyadiisana waa bulletproof asaga dhan waa la adkeeyay oo xabadaha si u karin ay muujinaysaa inuu bulletproof laga soo dhigay.
marka gaarigaas asna xabada waa la arkay, xabada lagu la dhacay. marka dabcan taayirada iyo waxba kulli bajaray waa la fariisiyay asagana, halkaasaa la fariisiyay. marka halkaa fariistay ciidanka way saaran yihiin, waxay isku dayayaan marka ciidanku inay ka degaan ay dagaalamaan. bal waxa ku dhacaya aan eegno ayadana. ciidanka way ka degeen durba, waxay bilaabeen inay ka degaan oo ay dagaalamaan. waa kuwaas dhinacyada gaariga taagtaagan, waa la tooganayaa oo shiisha wada saaran, kulli waa la tooganayaa ayaga dhan. marka gaarigii asagana halkaas ku haysataa, ciidan badanaa ka degay, waa kuwaas halkaas ku jira, midmida loo tooganayaa. meeshan meel maaragtay ciidanku ay awal maaragtay difaac xoog looga jiray oo lala socday dhaqaaqeeda ay ahayd. marka gaariga labaad oo isku ragahan halkaas ku qabsatay, kiina halkaan oo qiiqaya asna waa gubtay. mishi weyn oo ahaa kulley oo lasoo diyaariyey, laakiin sida muuqata waa guul daraystay mishinkaasi. dadkii saaraa ciidankii ayaa weli dhaqaaqaya oo xabad kii madaxa qaadaba waa la tooganayaa. waxaa arkaysaan dad taagan gaariga dhinaciisa oo xabad ku dhacayso. runta labada baabuur haddii qorshe loogu talagalay uu fuli lahaa, waxay geysan lahaayeen saameyn weyn, laakiin ma dhicin. markaas weli xabadihii waa dhacayaan. kolley ciidankii gaariga ka degay ayaa qaar waxay isku dayayaan inay maaragtay fakadaan ama ay difaac galaan, laakiin xabadaa ku socota. muuqaalku intaan uu ka dheeraa, balse intaan ayaan kusoo gabagabeynayaa.